oo Ilaahay oo idmo sida loogu talagalay oo u dhaco wuxuu ku saabsan yahay doorashooyinka 2020ka 2021ka maxay ahayd in la qorsheynayo ayuu ku saabsan yahay doorashooyinkaas la qorsheynayo waxaan rabnaa maxay ahayd odayaasha haweenka dhalinyarada ana qolo kasta inay ayaga ra'yigooda iyo taladooda iyo wixii ay talahayaan inay ayagana ay ku beeriyaan waxyaabaha dhacay waxa kamid ah oo la wada ogsoon yahay in doorashooyinkii hore ee dhacay macnaha odayaasha ay soo xul jireen oo baarlamaanka ay soo xul jireen markaasna baarlamaanka uu saas ku imaan jiray waxyaabaha hadda la rajeynayo waxa kamid ah in qof iyo cod ay noqoto oo doorasho ay dhacdo oo qofka xubnaha baarlamaanka u tartama ay macnaha ay noqdaan dad codka bulshada ku soo baxay oo aan macnaha aan dad gooni u gaar ahayn odayaasha marka waxa laga rabaa haweenka waxa laga rabaa gabdhaha dhalinyarada waxa laga rabaa dadka ay dooranayaan inay ku doortaan macnaha wax qabad inay ku doortaan aqoon laakiin aysan ku dooranin inta ka soo hartay macnaha waxyaabaha jira waa la ogyahay qofka waxa laga rabaa inaad la xisaabtami kartid qofka aad dooranaysid waxaa leedahay berrito maxaa ii qabane dowladda dhexe maxaa iiga soo qabane gobolka degmada aan joogo maxaa u qabane qofkaas markii aad wax ku heshiisiin berrito markuu dowladda dhexe tago waa la xisaabtami kartaa soo maha laakiin lalama xisaabtami karo marka barnaamijkeena guddoomiyaal waa mahadsantihiin saas uu ku saabsan yahay waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeelle hoose gudoomiyaha gudoomiyaha waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha amniga iyo dib u dhiska mudane mahdi axmed xasan aan rabaa inaan kusoo dhaweeyo